الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، waxaa mawduuceena khudbadeena ay ku saabsan tahay ducada waxa ay leedahay mabaaxif ama qodobo laga hadlo. mawduuc aad u weyn oo cibaadooyinka ilaahay kuwayaalaha u muhiimsan ka mid mar walba iyada oo ducadu lagama maarmaan ay tahay oo waajib ay tahay, haddana waqtiyada ciriiriga uu jirana in lasii badiyo wey. ducadu tilmaan bay leedahay, fadli bay leedahay, xukun bay leedahay. waqtiyo ay fadli badan tahay baa jira, siiqooyin uu nabigu ina baray ama habab loo ducaysanayaa jira, dad laga ducaysanayaa jira. waxay leedahay aadaab lagama maarmaana si loo aqbalo. waxay leedahay mawaanic, waxyaabo ducada in la aqbalo hor joogsada oo ay tahay in la iska ilaaliyo. waxaynu uga jeednaa mawduucan markaynu soo qaadanayno. marka hore, cibaadooyinka ilaahay uu nagu addoonsaday inaynu u gudanno sida salaadan oo kale ayaa ay ka mid tahay ama la mid tahay cibaadada. salaada dhexdeedaba waxaynu ku qabanayno waa inaynu ilaahay ku baryayno subxaanahu wa tacaala. nabiguna wuxuu leeyahay xadiidkaa u dambeeyaynu akhriyayna adducaau bufu lcibaada. ducadu waa cibaadada dhuuxeeda, shayga dhuuxiisuna waa waxa u muhiimsan shaygaa. waxaa labaad aynu usoo qaadanaynaa lianlaa nactamid cala alasbaabi almaadiyati faqat zaya gayri lmuslimiin. waa inaynaan cuskanin keliya sababaha maadiga markay dhibaatooyin jiraan iyo markaad ladantay mar walba ficiladaada iyo ficilo cid kalaha cuskanina kow waa silaaxa qawiga ama hubka uu leeyahay qofka mu'minka ah ee wax walaa caaiqoo ka hor yimaadaba uu ku jebin karayo way ducada. marka 24 saacadood intaad soo jeedo waqti walba digriga aad badanaysaa bay ka mid tahay ducada. marka baahi kastoo inagu timaada waa inaynu ilaahay marnaa subxaanahu wa tacaala, xataa haddaad bani aadam wax weydiisanaysa ilaahay mar oo dee lagu saamaxay waqtigaa. ducadu way ka duwan tahay waxyaabaha kale oo dhan. haddii dadku ay wax isweydiistaan iltimaas iyo dalab iyo waxyaabaha sarreeya, dadku ama ha kala sarreeyaan ama ha kala hooseeyaan ama ha sinaadaan. laakiin adducaa waa erey, waa dalab loo isticmaalo keliya ilaahay subxaanahu wa tacaala marka wax laga doonayo. wixii isaga ka yimaadaana waa amar, wixii inaga yimaadaana ilaa addoomo masaakiin oo fuqaraa baynu nahayeen adducaa baa isaga wixii ka yimaadaana waa amar rabbi subxaanahu wa tacaala. ducada fadligeeda waynu arki doonaa. xukunkeedu waa waajib. in ilaahay la baryaa waa faral, waayo laba midun bay noqonaysaa. haddaad baryi weydo inuu addoonkii ilaahay ka maarmo iyo inu cid kala baryo, labaduba waa xaraam. marka waqti walba in ducadu ay badato waxaynu ku arki doonaa axaadiida rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waqtiyo fadli badan baa jiro iyagana rasuulku uu baraarujiyey oo farta uu inoogu fiiqay. siiqooyin iyo ducooyin jaamico iyagana aynu xusi doono insha allahu, iyo cidda laga ducaysanayo. marka hore, dadku waa 3 qaybood. qof ilaahay ka wacday oo maalintuu baahan yahay un garto taa ilaahay gaalada ku sifeeyey. qofka labaadna waa qof muslima oo mar walba ilaahay baryaya subxaanahu wa tacaala. waana ka ay tahay isku waaninayna inaynu ku sifowna ay tahay. qofka saddexaad waa qof ilaahay aan ugu mahadnaqin fadligii iyo dheeraadkii uu siiyey. labada kaleba waa midkaynu isaga digayno. qofka mu'minka ilaahay xusuusan weeye ka aynu isku waaninayna. ducadu waxaynaan u daynaynin marnaba. ilaahay wuu ku farxaa marka la baryo subxaanahu wa tacaala. halka bani aadamku ay idhaahdeen baryo badan, baahi badan, bukaan badan, intaba waa la ysku nacaa. ilaahay waxa uu kuu nacayaa marka aad baryi weydaa buu u arkayaa inaad kibirtay. alla waxa uu leeyahy waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadati sayadkhuluuna jahannama daakiriin. ilaahay wuxuu idin faray oo idhi barya, ilaahay barya waan idin aqbali doonaaye ballantaasuu ilaahay qaado. lidalik baa cumar waxau lahaa calaya hamu ducaa walaysa calaya hamu lijaaba.
aniga hamigay saaran waa inaan ilaahay gacmaha hoos dhigtoon baryo ima saarna ma aqbalaya mise ma aqbalayo waayo ballan buu qaado waan ku kalsoona marka ilaahay waxa uu kuwa iska weyneynaya ka kibraya cibaadadayda oo aayadda ilaahay uga jeedo ducada naarta ku abaal marinaya ilaahay bal isaguna wuxuu ku leeyahay haddaad wax weydiisan weydo waan ku naaraya bani aadamkuna waxay kugu nabcaysanayaan markaad wax weydiisato ilaahay subxaanahu wa tacaala sida shaacirka aynu arkaynay uu ka gabayay bani aadamku markaad wax weydiisato way ku caroodaan ilaahayna markaad waxba weydiisan weydaabuu ku caroodaa aadaab bay leedahay ducadu waxaa kow ku ah in ilaahay loo gooni yeelo subxaana haddaad ilaahay cid kale ku lifaaqdo ama raaciso macnaheedu waxa weeye ilaah iguma filin ilaahayba lagu lifaaqo ama hebelo marka taa ilaahay waa diiday waxaana uu qur-aanka ku leeyahay wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlishiina lahu ddiin keligii inay ilaahay baryaan baa la faray keligii inay ilaahay u cibaadaystaan cibaadadiina ducada ka mid a wa ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada masaajidda ilaahay baale cid kale ha raacin inay keligii ku barya marka aadaab waajiba wey aadaabta waajibka ah ayay taasi ka mid tahay ilaahay wuu nagu fulanya dhannababa saluugayna subxaanahu wa tacaala dad iyo duuyo adduun iyo aakhiro wax kastoo kugu adkaada isaga la bari isaga bariyo weydiiso adaabta waxaa ka mid a inaanu qofku mustacjil noqonin oo aanu ilaahay saluugin ducadiisana aanu kasoo dulboodin oonu degdegin laakiin uu caga dhigto uu imaansado rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leey yustajaabu liaxadikum maa lam yacjil yaqulu dacawtu falam yustajab lii qofka waa loo aqbalayaa ducadiisa haddaanu degdegin oo hadduu degdego lama aqbalayo siduu u degdegaya nabigu u fasiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy waana ilaahay waanu barina waxba lama aqbalin salaatu istisqaa tukanayo mar labaad lagu celiyo mar saddexaad oo ilaahay waxba ma aqbalin hadduu qofku leeyahay aan isa saxno qalad baa jireen laakiin ilaahay waxba ma aqbalayaan iska dayna socon mayso oo sidiisaba shayga daacada ah samee oo hagaaji mooyaane hagaaji ama iska daamada macnaha inuu qofku yidhaahdo wixii ama ha la hagaajiya ama ha la iska daayo maya shayga cibaadada waa la wadaya waana la hagaajinaya adaabta waxaa ka mid a uu rasuulku inoo jideeyey sala allahu calayhi wasalam si ducadeenna loo aqbalo inaanu qofku dembi ilaahay baryin oo aanu ku ducaysan laa yazaalu yustajaabu lilcabdi maa lam yadcu biithmin aw qatiicati raxim rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahy qofkii waa loo aqbalayaa ducadiisa haddii aanu ilaahay dembi baryin dembi iyo macsiyo muraadka iyagoon macsi ahayn bay dhaha soomaalida way ku saxan yihin ama aanu qatiicatu raxim rixim goysnimo iyo cid uu habaarayo aanay imanin waa loo aqbalayaa qofka ducadiisa qofku marka uu ducaysanaya aadaabta waxaa ka mid a inuu qalbigiisu soo jeedo oo adigoo maqano jooga ah ilaahay ha baryo waxaa ka wanaagsan habboon lagama maarmaan adiga oo ilaahay usoo jeeda bani aadamka qofku markuu wax weydiisanaya wuxuu isku daya inuu qalbigiisa iyo dareenkiisa soo wada jeediyo oo muuqaalkiisa laga arkay qof baahan inuu yahay ilaahay saasi ka badan u bari subxaanahu wa tacaala adiga oo muqbilan calayh fii khushuucin wa sakiina si degan ilaahay u baryaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay xadiidkii saxiixa ahaa udcu llaha waantum muuqinuuna bilijaaba waclamuu ana allaha laa yastajiibu ducaaan min qalbin gaafilin laahi ilaahay barya idinkoo ku kalsoon inuu idinka aqbalayo saluugsanayn waxaana ogaataan duco ka timi qalbi qaafila inaanu ilahay aqbalin xadiidkaa isaga ah waa culimada qaarkood saxiix bay ku tilmaamay qaarkoodna xasan qalbi qaafil ah macnaha qofkii carabkiisunbaa wax wada laakiin wuu sii jeedaa soo jeeso ilaahay qaabiloo baahida u muujiso si adaba u bari ilaahay marka aynu baryayno in isbedel yimaado weyn oo wixii aynu faraha kula jirna aynu gacmaha kala baxno oo tawbadi ay la socoto ducadeena iyo istikfaar ila ducadiiba ka mid yihiin laakiin inagoo xumaantii booshaaqayno faraha kula jirna ilaahow ka noo aqbal ilaahay buu xoog waxba lagama qaadayo subxaanahu wa tacaala alla waxa uu leeyay in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim waida araada allahu biqowmin suwan falaa maradda lah wamaa lahum min duunihi min waaq isbedelka
إلهي نكدون إن إسبدل إن نصمينا أبو نوحري ربي سبحانه وتعالى دي بقولنا قلنا أي نترينه بليه باسك أي فراك ولا ترينه يا وحي إلهي قدرتك كجلي أي نكون عاصني تبع ترى نصحنه بعد السلف علماء الصالحين تمت كمل ما وحول الله تصطدي الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي دي وحلها دعاءها الله يا من تبعينه طريقي أي كوسا مر الحق أديها معصية كأورية دعاء المرن كي كوسا مر لها أقبل كير معصية يدن بتكون